warmiyaanan noolayn mise nafabaa igu jirin warmiyaanan noolayn mise nafabaa igu jirin wax walba isku koobteen madaxweyne waa idinka kii gudoomiye waa idinka kii baarlamaanka waa idinka kii mataqaanaa guurtida waa idinka kii gudu waa idinka war dadka waxba uma ogolidine annagu gobolkaanan u danaynaa inaan xusbi hellaan doonaynaa saddex nin oo isaaquuna inay xukumaan muttafaq noqdaan ma doonayno kursiga ilaahay baa dadka siiya madaxweynaha ilaahay baan ka sugaynaa kaa laakiin xusbinimadaan doonaynaa annagu inaan hello xusbi wixii aan ku ballannay oo halkaa la saxiixaan rabna haddaad diiddaan reer sheekh isxaaqow fariisa minaa war bal xusbi iyo ururun aan la soo baxna baan taladii annidhi yaynaa qori qaadani waxaa muuqanaysa inaad tii qorigiina u kallifaysaan kulan warbaahineedkan ay ku qabteen magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal madax dhaqmeedka gobollada galbeedka somalilan ayaa jidhkooga jira ayaa taageero mug iyo miisaanle ugu muujiyeen hadalkii ka soo yeedhay brofesor axmed ismaaciil samatar ee ku aadanaa doorashooyinka soo socda madax dhaqmeedkan oo hadalka iska daba qaatay ayaa waxaa kaloo ay carabka ku dhifteen in doorasho aan laisla ogoleen ay ka dhici karin deegaanada ay ka soo jeedaan madax dhaqmeedkan ayaa waxay hadalkooga ay ku soo gunaanadeen isla markaasina ay fariin ugu direen xukuumadda hogaamiye madaxweyne biixi ay ugu baaqeen in hoos loo eego wada lahaanshaha iyo saami qaybsiga somalilan waxaan kaloo leenahay sharci baa wax walba jira dastuur la soo maray baa jira dastuurkaa la soo maray waxa weeye 13 inay horreeyaan baadna tidhaahdeen kumishikaa ku dhawaaqay ta madaxweynaha iyo ta dawladdu way dambaynaysaa bay ballanteennu ahay waxaana maanta aad leedihiin odayaal arrigu soo gebagabeeyeen oo yidhaha odayaal baa harkii hore ka guuray waxaan leenahay doorashadu waa 13 urur sidii loogu talagalay yay u dhacayaan haddaan ree awdanno taasi jiri weydo oo odayaal barigii oday waliba dee reerkiisa u tashan oday waliba reerkiisa ayuu tashan haddii laga guuro kumishiku wuxuu sameeyey iyo dawladdu waxaan kaloon leeyahay waxa weeji dalku qaran buu yahay qarannimadii somalilan ayaan u soconnay waxaan u soconne waad ku dhawaaqday doorashada madaxweynuhu way dambaynaysaa baad tidhaahdeen tawraduna way soo horraysa waxa beddelay kala beddelay haddaan ree awdan dheh haddii laga beddelo qodobkii u horraysa annagu haysanno kuma jirra imikama doorashadu dawlad baanu dhisannay beeshaa dhexe dawlad baanu wada dhisannay sharci baanu meel dhigannay 3 hay-adood baa sharcigaa inay ilaaliyaan loogu tala galay beel ka midaa saluugtay beeshii duurkay gashay ninkii qoriga qaatay ayaa sharcigii aynu dhisanin loo burburiyey awdii maalintii buurta ay galeen waa ka dhidhinoo dalka waan wada leenahay sidaan u badbaadin lahayn ayaan duqeey samaroon iyo ciise halkan ka dirnay hargeysay tegeen waa la soo dhoweeyey waxaad tidhaahdeen haddaad tihiin beesha dhexe idinma baahnin sharaftii baad ka qaadeen duqeydayadii jilib ka mida somalilan ayaad mas-uuliyaddii masiirka somalilan oo dhan aad u dhiibteen 3 hay-adoodda waad burburiseen dawladdii baad burburiseen go'aanadii ay soo saareen beeshaasi ayaa baarlamaanka la hor keeno oo la hirgeliya la yidhi waxaan aqbali karna ma aha haddaannu nahay gabiilay iyo awdal iyo salal waxaan aqbali karna maaha dadku sidiinuu damiir leeyahay sidiinuu tashan karaa urur baan la soo baxnay hilaac laydhaah war ma 3 xisbi oo beel quriha ay leedahay ayaan ilaa iyo muddo 30 sano oo daba joogaynaa ma daba joogayno hadduu maanta xisbigaasi ka qayb geli waayo doorashada maanta gabiile iyo awdal iyo salal wax doorasho ka dhacaysa ma jirto waa go'aanka samaroon maanta waa dhan yahay wax doorasho ka dhacaysaa beerati ma jirto taa gowska damba ku qabsada iyo beesha ciise iyo beesha samaroon wax alla wax doorasho oo ka dhacaysa degaankooga gabiile ilaa awdal iyo salal ma jirto taa horta gows dambeedka ku qabsada waxa weeye wax walba isku koobteen madaxweyne waa idinka kii gudoomiye waa idinka kii baarlamaanka waa idinka kii mataqaanaa guurtida waa idinka
kii gudu waa idinka war dadka waxba uma ogolidine maalintaan wax wada yeelanno ayaan mataqaanaa wada hadlaynaa ise waxaa doorashadaad mataqaanaa saddexdii xisbi haddana sakeenaad nageelisaa doorayso diidnay waa kulana marnaba yeeli mayno horta in baan ka hadlaynaa waxa weeye wax kasta oo dhaliil iyo saluuga iyo waan soo qaadannay dulqaadkeega iyo samirkeedaan u yeelannay waxaan nidhi mar haddii tashi iyo walaalnimo iyo wada tashi waxba lagu kala heli waayey war bal xusbi iyo ururun aan la soo baxna waan taladii aan nidhi yaynaa qori qaadani waxaa muuqanaysa inaad tii qorigiina u kalifaysaan ayaa muuqanaysa waxa weeye halkaa ummaddanoo halkaa ka timid oo odayo ah oo suldaanno ah oo uqaalah oo u timid arrimada qaska idinka dhex taagnaa idinka inay xalliyaan ayaa tidhaahdeen habar jeclaan u dhiibannay taladee noqda markay idinka soo noqdeenna ma waxaad noo yeedhinaysiin dastuurkii iyo qarankii iyo wixii aynu lahayn habar jeclaa ka weecisay oo taladeedaa la raaciya ma taasaad nagu qancinaysiin war kuma qancayno tu aan ku qancayno maaha dulqaadna uu naga soo dhammaaday haddii aanan 13 urureen ku heshiinay sidoodii u soconayn waddadii dastuurkii aan samaysannay sidiisii u shaqaysnayn annagay wax nagagama maqnaayeen adiga wax kaagama maqnayne dee habar jecle taladeeda ma qaadanayne annagu reero ka badan baan nahay waannu tashanaynaa gobolku wuxuu la mid yahay gobollada kale waxay hargeysa doonaya waxay burca doonaya waxay ceergaaba doonaya sida waxay waan doonaynaa anagu yaan sida dadka xusbi inaan samaysan xusbi yeelanaan doonaynaa xusbigaa waxaan leenahay haldheeri inuu ku soo baxo ayaan doonaynaa haldheeri waxaan doonaynaa dhulku waa nabad annagu dee gacan libaaxna ciidan maanaan geyn meel kalena maanaan geyn 3 madaxweyne Soomaaliland leedahay bar madaxweynaha xukuma bar waxa xukuma salaadiinta xukunta oo gacan libaax salaadiinta xukunta habar jeclayada haydaankii bay ka baxdo wax kale keentay wax distoorkii ka dibadda ay keentay haddana anagu kamaanaan diirina waan ka hadlaynaa xusbiga waxaa reerku keenay dee annagu distoorkii baan ka aaminsannahay distoorka in lagu shaqeeyaanan doonaynaa annagu wax walba in laga dooday haddii laga duwo waan ka duwaynaa annaguna laakiin wixii distoorku siduu ahaa sidii lagu heshiiyey doorashooyinka haldheeri in lagu kala badiyo gobol 20 ka keen anagu madu waxaan doonaynaa haldheeri baan doonaynaa annagu gobolkaanan u danaynaa inaan xusbi helaan doonaynaa 3 nin oo isaaquuna inay xukumaan muttafaq noqdaan ma doonayno kursiga ilaahay baa dadka siiya madaxweynaha ilaahay baan ka sugaynaa kaa laakiin xusbinimadaan doonaynaa annagu inaan helo xusbi gobolku leeyahay oo galbeedaan doonaynaa oon maanta kaasaan u baahannahay waaqiladuna horey u sheegeen laakiin qori ma sidana annagu qalin baan sidanaa haddii qalanku anfici waayo dawladda Soomaaliland qori baa iman wax meel ka dhaco wadnaa ma jirto qaranka waan ogol lahay mana diidanin laakiin waxaan diidanahay dee cadow ama ku cunay ama ku ciideeyay waxaan aqbalayna maaha haddii aanu nahay gobolka Salel iyo Awdal beelaha Samaroon iyo Ciise iyo Gabiley waxaan doonaynaa haldheerigii dastuurka ogolaa ee lagu ballamay wax ka duwan haddii uu meesha yimaado waxaana ma ogolin doorashaanan ogolayn wax ka duwan banaan ogolayn waxa soo kiciyay ayaan qabnaa oo ah 32 sanadood sacabuuna nagu idin tumi mayna isaaqowe waxa weeyaan cidhiidhiga la isku soo gaaray cidhiidhiga hadday dani kuugu jirto cidhiidhiga xaqayaga halka dhig haddaanay dani kuugu jirin aniga dani iguma jir waxa weeye waxa la furay urur baan la soo baxnay xusuladaana murxay halkan inaad ka tiraahdaan oo habar jeclaa halkan la qaato warkooga waa kuwa hadday odayaal qabanayaan waa kuwaas waa isku mid rag waa rag odayaashu waa odayaal weliba 2 gobol baan weliba leenahay badh maanta ayay soo gaadhay ninkii dhagalow maqal haddii sidaanu doonayno loo geli waayo wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inaan doorasho gelay haddii kunna ku kufriyayso kunna ku muslimayso haldheeri baanu rabnaa dastuurkoo la furaanu rabnaa
xaqoo lagu addimaan rabnaa wixii aan ku ballannay oo halkaa la saxiixaan rabnaa haddaad diiddaan reer sheekh isxaaqow faraysa minaa waxaan leehay markaas aragliyahayey ma argamba afliyahayey ahallimba way war miyaanan noolayn mise nafabaa igu jirin war miyaanan noolayn mise nafabaa igu jirin mise irbad sunaasaygu mudan war miyaynan noolayn mise nafabaa kuba jirin war miyaanan noolayn mise nafabaa kuba jirin mise irbad sunaasaygu mudan way adili yaayey hadirkanba way afli yaayey way ahallimba way war miyaanan noolayn mise nafabaa igu jirin war miyaanan noolayn mise nafabaa igu jirin mise irbad sunaasaygu mudan sidaa odayaashu sheegayaan wax doorasho oon galaynaa haba yaraatee ma jirto dastuurkii ha la furo